iyadoo maalmihii la soo dhaafay deegaanada galbeedka ka jira magaalada Kismaayo ay ka dhacayeen dagaal beeleedyo ayaa waxaa dagaaladaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. xiisadan ayaa aad looga hadalhayaa magaalada Kismaayo. deegaanka Dalsan oo qiyaastii Kismaayo u jirto 25 kiiloomitir waxaa horey ugu dagaalamay labadan maleeshiyo beeleed. maamulka Jubbaland iyo ismada dhaqanka ee deegaanka ayaa ku guuleystay inay damiyaan colaadda deegaanka ka dhacday, waxaana hadda dib u soo cusboonaaday colaadan oo ku dhawaad sanad ka hor deegaankan ka dhacday. deegaanada ay dagaaladan ka dhacayaan ayaa waxay kala yihiin Dalsan, Haadweyne, Aaga Biroole ilaa iyo dhanka xeebta ah. waxaana jira cabsi badan oo dadka deegaanka soo food saartay, waxaana dagaaladan ku nafwaayay ku dhawaad 10 qof iyadoo ay jiraan tiro dhaawacyo ah oo la dhigay cisbitaalka magaalada Kismaayo. odayaasha dhaqanka iyo ururada haweenka degmada Kismaayo oo warbaahinta Kismaayo kula hadlay ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo colaadda u dhaxaysa labada beel ee walaalaha ee deegaanadan ku soo noqnoqotay. beelahan walaalaha ah ee galbeedka magaalada Kismaayo ku dhaqan yaan baaq nabadeed u jeedinna. beeluhu hadda koow ma aha ugu meehee horay bay dhibkoodu u dhacay, waana la xalliyey oo waxaa xalliyey isimo la hoosgalay maamulka jira maanta la hoosgalay. waxay nabad tari weyday colaad ma tarto, waa la og yahay wax badan baa lagu soo jiray waxaa colaadda. dadka halkaa degan waa dad walaalo ah, waa dad ehel ah, waa dad wada dhashay, waa dad isku deegaan ah oo nan meelan u kala bixaynin, meelan u kala tagaynin. waxaan leenahay dadka asaga ah war haddaad dirirtaan iyo haddaad islaysaan meel uma kala socotaan oo isku deegaan baatiin. labada beelood waxaan leenahay salaadiinta labada beelood labada dhan waxaan ugu baaqaynaa xabadda sida ugu dhaqbasan inay ugu joojiyaan. arrinta markaa arrin ugu ma aha, dhibaatada dadka loo geysanayo wax yar ma aha. dagaal hadduu bilowdo waxaa ku dhinta maatiya ku dhimata, maskiina ku xoolo waaya, maatiya ku guriga beesha, ilmaha ku agoontooba, dhul baa ku nabaad guura, dad baa ku xoolo waaya. waxaan baaq ugu diraynaa madaxda labada qole ee isdagaalaysa inay arrintaas ka waantoobaan. waxaan baaq nabadeed u diraynaa haddaanu nahay odayaal dhaqameedka iyo haweenka Soomaaliyeed, labada beelood ee walaalaha ah ee tan iyo baryahan iyo sanadadan ku dirirayay deegaanka iskuna haysta deegaanka. waxaan u sheegaynaa oo aan cod dheer iyo cod gaababa ku leenahay inay walaalada iyo joojiyaan dagaalka, inay daayaan dhibaatada. dagaal wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho. colaaddu way xun tahay, colaaddu ma fiicna. waxaa socda dadaalo ay wadaan madaxda iyo ismada dhaqanka Jubbaland si loo xalliyo colaadda deegaanadan ka soo cusboonaatay. deegaano dhowr ah oo ay dagaalada ka dhaceen ayaa waxaa ku baxay ciidanka Jubbaland, walow ay jirto cabsi. wararka ayaa sheegaya inaysan jirin dagaalo toos ah, hase yeeshee ay maleeshiyooyinkan beegsanayaan shacabka iyo xoolo dhaqatada labada dhinac ee dhulka hawdka wada dega. Ilaadan Maxamed, TV-ga Universal, Kismaayo.